dhimatay daraadeed iskoog ayuu cali sabiix tagay sidaanu ku maqlayna wuxuu ku jiray shaqadiisii faalkiisii oo anagii jimcihii hore ka hadalnay geedihiisii iyo musheekdiisii faalsigii iyo wixii oo dhan ku jiray oo shaqajaankaagu ku jiro maqnaa haddaba waxa ku soo biiray 11 bishan jimcay ahayd 11 salaadii jimcaha buu tagay salaadii jimcaha markuu tagay 11 bishan waxa dhacay yarraale noqdo qof baa halkani waxa iga weydiinaya waxa weeyaan waxa dhacay xasan oo 11 bishan markuu tagay masjidka jimcaha ee la yiraahdo jaamac kabiir la yiraahdo cali sabiix ku yaaluu tagay ismaaciil umar halkaa buu salaadii jimcaha ku tukanayaa yiri markuu salaadii jimcaha tukanayay haddaba maxaa dhacday waxa dhacay muazinkii odayga ka eedaama masjidka ayaa joogay imaamkii tujinayay uu maqnaay uu baahay haddaba ismaaciil umar markuu salaadii jimcaha galay wuxuu u dhiibay envelope yar ama gal ay ku jirto 200 oo kun oo Djibouti lacag ayuu u dhiibay muazinkii markuu u dhiibay muazinkii wuxuu sameeyay xasanow lacagtii goshuu galiyay uu xajiyay 200 kun oo Djibouti 200 kun oo Djibouti ayaa ahayd lacagtu wuxuu sameeyay waxa u dhigmataa 1125 euro bay u dhigmataa aduu 1200 euro wax u dhigmo weeyaan ama 1500 dollar u dhigmataa ayuu u dhiibay haddaba muazinkii salaadii baa la galay imaamkii wuxuu yimid iyadoo salaadii la galayo markuu yimid imaamkii iyadoo salaadii la galayo jimcaha ayuu salaadii muddo u salaamay ismaaciil umar salaadii baa la galay markii salaadii la dhameeyay ismaaciil iska baxay muadinkii baa lacagtii soo saaray uu kala qaybiyay 100 buu ka dhigay 100 wuxuu u dhiibay imaamkii yiri waa kan ismaaciil baa dhiibay labada 100 kan adiga leh 100 kan adiga imaamkii wuxuu yiri anaa wax qaybiyo meeshan waana ku shaqalay wixii masjidka soo galay inaan qaybiyo lacagtan ismaaciil uu dhiibay ay ka dhiibay keen guud halkii baa la isku qabsaday fair baa iska shaqeeyay meesha waxa noqotay ringii maaragtay mark Tyson ku feertay noqotay imaamkii iyo fair baa iska shaqeeyay meeshii haddaba kala qabtaay bay noqotay uu iskaga tagay ismaaciil umar kadib maxaa dhacay waxa ku xiguu sameeyay 16 bisha ismaaciil umar siday ka yiraahdeen faalisayaashiisii ragii wuxuu faalinayay balaayada uu kala rogay shaydaanku waa inaad lugaha la gashay dhiig baa la yiri meel dhiig la waa inaad dhaxmartid zariimada la yiraahdo il janno ku taalay janno buu tagay subaxii ku kala ismaaciil umar isagoo afar ganta goor la socdaan muuga wuxuu maray qaybta wax lagu qalo neefafka lagu qalo ee dhiigga wada meedhan ee xoolaha lagu qalo hilibka lagu iibiyo tagay dhiiggii buu dhex socday dhex maray ismaaciil umar kolkuu dhiigga dhex maray lugaha la dhex marayna uu ka baxay meeshii dadkii musaa salaamu ka baxay cid ka warka haysi ma jirin prefect warka ma hay komisaarka warka ma cid warka ma haynin kolkii dambana salaadii haddana 18 bishan aan ku jirno salaadii jimcaha uu tagay oo wuxuu ku tukaday markan kuma tukan masjidkii jaamac kabiir uu tagay